halkani waa idaacadda raadiyo baraarug media oo alaabeen ku soo gudbo wax ka dhacay geeyiga Soomaalida iyo caalamka saaxiibayla ilaawinaad ku dhufataan subscribe si la gareysanayo wadaagtaan saaxiibadiina kale madaxweynaha dawladda deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar ayaa diriqi kaga badbaaday Afgembi wasiirkii hore ee madaxtooyada dawladda Axmed Silaay Maxamuud Xaashi Cabdi ma isaga furtay ururka cusub ee maanta laga dhawaaqay magaalada Hargeysa ee Gurmad ay tahay sababta uu madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan magaca uga bedelayo dalkiisa Turkiga iyo tawawaca qayla dhaanta ka soo yeeraysa guud ahaanba shacabka reer Somaliland ayaa waxa saameyn weyn ku yeeshay kororka shidaalka xilligan oo dalka Somaliland ay hareeyeen abaar aad u baahan dawladda deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa diriqi kaga badbaaday Afgembi la doonayay in lagu sameeyo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka hortageen inqilaab la doonayay in lagu afgembiyo dawladda kaas oo ay maleegayeen kooxo nabadiid ah sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay dawladda Mustafa Cagjar war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kooxaani xiriir la leeyihiin ururada argagixisada kuwaas oo doonaya inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka balse dawladda madaxweyne Mustafa Cagjar may magacaabin cidda afgembiga maleegaysay ee doonaysay inay sameeyaan ahaanba dalka Somaliland ayaa qiimaha lagu iibiyo shidaalka oo cirka isku sii shareeraya iyo xildhibaan Maxamed Abiib oo si aad u cambaareeyay tallaabada ay ganacsatada shidaalku ay kor ugu sii laba laabeen qiimaha shidaalka lagu iibiyo guud ahaanba suuqyada Somaliland ee gobolada iyo degmooyinka ayaa maalinta ka dambaysa laga sii kordhiyay qiimihii uu hore lagu iibin jiray shidaalka kadib markii ay shacabku si weyn u dareemeen labada maalmood ee la soo dhaafay kor u kaca iibka shidaalka iyo sida uu dalka u yaalo oo aanay jirin shidaal la'aan sabab ay u noqotaba qiimaha lagu sii kordhiyay shidaalka oo markii hore halka litir batroolka ahaa 6500 ayaa hadda gaaray 8000 oo shilin iyo qadaadiic dheeraad ah iyadoo oo markii horeysay ay cabasho weyn ka muujiyeen gaadiidka xilligan adag ee jilaalka iyo biyo la'aanta jirto u dhaamiya dadweynaha xilligan abaaraha ba'an ay hayaan ee xoolo dhaqatada dalka Soomaaliya booyadaha ayaa sheegay in aanay awoodi karin biyo gaarsiiyaan dadka abaartu haysa ee halaageysay maadaama qiimaha shidaalku ay sheegeen xilligan dhiigbax uu yahay guud ahaanba qiimaha lacagta ee la siinayo guud ahaanba waxa soo taraya abaaraha ba'an iyo biyo la'aanta guud ahaanba ka jirta dalka Soomaaliland xilligan oo muuqata in maamulka madaxweyne uu ka yahay Muuse Biixi Cabdina ay moodid inay guud ahaanba habacsanaan oo aanay gurmad muujinayn muuqda dhinaca abaaraha ilka hore ee madaxtooyada dawladda Axmed Silaay Maxamuud Xaashi Cabdi maxaa ka jira wararka sheegaya in uu isagu leeyahay ururka Gurmad ee maanta laga dhawaaqay magaalada Hargeysa isla markaana xoog lagu kalsoon yahay ayaa tibaaxay in haweeneyda maanta laga sheegay munaasabada shaacinta ururka Gurmad Hodan Cabdi Muuse ay tahay magacayaal oo muraayada la soo taagay laakiin ururka Gurmad uu leeyahay una furtay Maxamuud Xaashi Cabdi warku waxa inta ku daraya in Maxamuud Xaashi Cabdi baqaayo kooxda heego oo rag iyo haween ka soo jeeda beesha Muuse Biixi Cabdi in ay dacaayado iyo waxyaabo sir ah oo ay ka hayaan Maxamuud Xaashi ku faafiyaan baraha bulshada iyo warbaahinta iyadoo la sheegay in Maxamuud Xaashi dabar ku noqotay inuu is cadeeyo oo bareerihiisa siyaasadeed uu cadeysto Maxamuud Xaashi baaqitaan iyo ku dhac la'aan uu ka cabsanayo kooxda heego ee Muuse Biixi beeshiisa ah oo kooxda heego ee ka soo jeeda isla beesha madaxweyne Muuse Biixi ay u sameeysan tahay qaabkii gulwadaynta kacaankii Maxamed Siyaad Barre oo kale in ay ku soo qaadaan waxyaabo lagu bahdilayo sharaftiisa ayuu Maxamuud Xaashi ka baqaya taas ayaa keentay inuu Maxamuud Xaashi uu hadabadiisa hadba uu ka soo maleego siyaasad magalaysa Abdullaahi Xuseen oo nin qaaliya madax dhaqameedka ay saraakiilku ka mid yihiin waxaan dhammaantiinba waa idiin mahadnaqayaa waxaynu xeeranay 10 sanaba inaynu mar
ururada iyo xisbiyada afti loo qaado. Waxaa afti loogu qaadayaa ururku inuu noqdo xisbi siyaasi ah. Kalkeedii baa maanta soo galay. Kalkeedii xisbiyada maanta jira saddexdaahi 2012 ayay u soo gudbeen xisbiyo oo shacbiga Soomaaliland u codeeyay. Kuwa badan baa hadhay oo guulaysan waayo dadku dooran waayo oo kalsooni la siin waayo. Dhammaantoodba way mahadsan yihiin. Waxay oggolaadeen in laga guulaystay siyaasadda, ama waa la guulaystaa ama waa la guuldarraystaa. Ceeb siyaasadda maaha haddii laga adkaado, maaha ceeb. waxa weeye inaad garan weydo in laga guulaystay baa ceeba. Maantana mar labaad 2022 baynu maraynaa. ururada siyaasaddu way furan yihiin. xeer baa jideeyey sida doorashada madaxtooyada uu xeer u jideeyey iyo dastuurku ayuu dastuurku wuxuu u jideeyey in muwaadiniintu wax doortaan lana doorto. ururka kalsooni shacbiya ka waaya inuu xisbi qaran noqdo isuma soo taagi karo madaxtooyada qarankan, isuma soo taagi karo waayo kalsooni buu waayay. waxaan dhammaan leenahay soo dhawaynayaa ururada siyaasadda ee ku soo biiraya saaxadda siyaasadda. Somaliland waa in ay taageeraan ururada cusub ee soo kordhaya ee siyaasadda. waa in la dhiirigeliyo, waa in dadku helaan dukaamo fara badan oo ay ka dukaamaystaan, oo ay u kala codeeyaan, oo ay kala jantaan. taasaa dimuqraadiyada. ma aha dimuqraadiyadda iyo nidaamka sax ahi in ay meel ugu xidhnaado shacbigu xisbiyo go'an 20 sannadood. sax maaha taas. tahay sababta dalka Turkiga madaxweynaha Erdogan magaca uga bedelayo dalkiisa. waa magaca cusub ee xukuumadda Ankara doonayso in ay aad ugu yeerto dalkeeda. madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in magaca cusub uu si wanaagsan u muujinayo dhaqanka, ilbaxnimada iyo qiimaha dalkiisa. dadka qaar ayaa ku doodaya in isbedelka uu ku dhashay aragti in aan la isku khaldin magaca dalkaas iyo shimbirta Turkiga loo yaqaan ee u eeg. marka loo eego luqadda Turkiga, magaca dalka ayaa loo qoraa Turkiye. markii uu dalkaasi madax banaanida qaatay quwadihii galbeedka 1923 dalka ayaa la baxay magaca Turki oo ah luqadda Ingiriiska. Ankara ayaa doonaysa inay dhawaan ay magaca cusub oo u gudbiso qaramada midoobay si caalamka oo dhan looga isticmaalo.